hotel race ee magaalada Boorama ayaa lagu qabtay kulan lagaga hadlayay qorshaha shanta sano ee Wasaarada Cadaalada gobolkan Awdal waxaana kulankaasi ka qayb qaadanayay mas'uuliyiinta kala duwan ee bahda garsoorka waxaana halkaasi lagu falanqeeyay qaabka ugu habboon ee qorshaha shanta sano ee gobolkan Awdal ee Wasaarada Cadaalada iyo bahda garsoorku ay ku shaqayn lahaayeen waxaana halkaasi ugu horeyntii ka hadlay isuduwaha Wasaarada Cadaalada gobolka Awdal Sacaada Cabdilaahi Maxamed waxaana ay ka warantay ujeedada kulankeenani waa workshop one day wuxuu daaran yahay qorshaha shanta sano ee Wasaarada Cadaalada ku shaqaynayso marka maadaama bahdi cadaalada nahay meeting saasu daaran yahay waa qorshaha shanta sano ee Wasaarada Cadaalada marka waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha bahda cadaalada haday gariiqaankii guud tahay xuquuq liisaankii legal aidkii xeerlaanintii maxakamadihii ururka qareenada oo kulanka nagala soo qayb galay waxaan ujeedadeena waxa weeyaan waa strategic planning-ka Wasaarada Cadaalada leedahay marka one day-gaas waynu rabnaa in insha Allah aynu isla gorfayno oo nagala soo qayb qaataan sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay agaasimaha Amuud Legal ee gobolka Awdal Barkhadle Xamuud waxaana uu ka sheekeeyay qaabka hawshaasi loo galayo jeedka oo ahaa sidii loo dejin lahaa muxuu ahaa strategic plan-ka for the next 5 years marka Amuud ahaan ujeedkaanu halkan u joognaa wuxuu ahaa ka jaamacada marka ujeedooyinkan oo kala la sameeyay jaamacaduhu urur dhaxaad iyo buddig bay ka oo wixii jaamacada laga soo initiate gareeyay boqorada implementation-ka sameeyay marka waanu soo dhaweynaynaa ka qayb qaadashadeena waanu soo dhaweynaynaa wax walba oo participation iyo contribution diyaar baan u nahay marka la leeyahay shanta sano soo socotana waxa waa goals waa weyn baa la dejinay marka maanta goalskii waa weynaaye laga duuli leh ba ka Amuud ahaan waxaan ku contribute green leh aananu filayna inaan noqono muxuu ahaa leading agent halkan joogi doono oo meel walba waxay leedahay cid ku munaasiba markay noqoto strategic plan in la develop gareeyo we should be the first leading partner sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay heer ilaaliyaha gobolka Awdal Cabdi Haybe Cilmi waxaana uu ka waramay seminaarkan tababarka ah ee ku saabsan qorshaha shanta sano ee soo socda ee habka nidaamka garsoorka iyo cadaaladda laga hadlayo run ahaantii markaynu ka hadlayno cadaaladdu waxay u baahan tahay qorshe loo dejiyo iyo nidaam lagu saleeyo waqti kasta waxba isbedelaya sida ay ummaddu u guurayso ayay dambiyaduna u guurayaan imiga waxa jira dambiye badan oo xeerkeena ka maqan sida electronic crime-ka dambiyadan saameynta ku leh isgaarsiinta xeerkeena may jirin moobilo message la isku diri jiray waqtigii la sameeyay sida daraadeed waxa laga marmaan ah in qorshe loo sameeyo oo la dejiyo oo waqtiga iyo xilliga la jaan qaado xeerku mar kasta waxa soo kordhaya dambiye cusub oo ka duwan dambiyadii hore ayaa jira waana kulankii u horeeyay ee noociisa ah ee ka qabsooma gobolkan Awdal oo ay ka qayb qaataan bahda garsoorka ee ka howlgala gobolka Awdal waa caafi TV-ga qaranka Somaliland Boorama